لنا به الدرجات وأنقذنا به من الدركات وكفر عنا به السيئات واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي جنة الفردوس كورابيو شيخ آذن حاج محمود حيري هذا سير لو يقاني وشيخ وينو قرنك سوالات كبحي أها إلهي waxaan uga baryaynaa inuu jannadiisa ka waraabiyo qoyskiisii iyo ehelkiisii iyo caruurtiisii iyo ummadda Soomaaliyeed sabriga iimaan ka siiyo dhamaan waxaan ka tacsiinayaa bahda culimada oo ahaa sheekh weyn oo daaciya waliba siirada ku gaara sheekha maalmahan oo dhan waxa ka hadlaya warbaahinta waxqabadkiisa iyo shakhsigu ahaa oo in badan ka sheegay waxa la isku raacsan yahay inuu ahaa samafale weyn oo aad iyo aad sabarka uga shaqeeyay wuxuu ahaa ninkii xabaalaha maanta lagu aasiyo asaaskeeda lahaa ka howlgalayna dhismaan iyo qaar ka horeeyayba waxaanu ahaa dee adoon yaqiinta garanayo hoyga akhrinka sii diyaariyay waxa la fiisay iyo kuweena uu sii diyaariyay ilaahay ka tidaaysiyo jannada ugu deeqo hawlaha uu qabtay waxa kale oo isku raacsan yahay inuu aad dadka jilicsan ugu dadaali jiray waxa kale oo isku raacsan yahay inuu ahaa sheekh aad iyo aad u daafaca qaranimada Soomaaliland oo rag badan inta dheeraa oo caam ku ahaa dhammaan talaabooyinka wanaagsan ku qaaday ilaahay aakhiro ha ku abaal siiyo jannada firdawsa taasaynu maanta ugu ducaynaynaa ducun buu inaga mudan yahay isaga waxa islaamay dhintay meydka la soo soo ka mid yahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa qoyskiina cawl khayr qaba inuu siiyo inagana samiriye ma naga siiyo qof walba ku cibro qaado halkan iyo meel labaduba baa loo keenayo waa lagu geyn marka aakhirna in loo sii dadaalo wanaagsan oo adduunka la isku ilaabin taasina way qadar daaran